قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي في الله، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحنكو بلابي هذا الك idinkoo iga raali ah اعتذار لمن حضر من غير الصوماليين. عذرا يا إخوتي في الله، فإن هذا المجلس خصص للصوماليين، فمن كان لا يتكلم باللغة الصومالية فيقبل عذرنا وأمرنا إلى الله سبحانه وتعالى. كبعد waxaan jecelahay inaan ka hadlo mas'alad daruuriya oo aan u arko maanta ducaadda iyo culammada waddanka jooga inay xoogga iyo laxaadka ay saaraan. mas'aladaasoo ah mas'ala mutacalliqa ku xidhan kuna salaysan aliimaaniyaat, aliimaan wamaa jaawara. iimaanka iyo waxa ag yaala ee soo ag degaba. maanta qof muslina oo ashahaadanaya oo caaqila oo baaliga oo mumayiza oo aan garanaynin inuu khamrigu uu xaaraan yahay ma jiro, inuu ilaahay xaaraantimeeyo zinada ma jiro, gabadh muslimada oo aan garanaynin inuu xijaabku waajib uu yahay ma jirto, inuu ilaahay tabarrujka iyo tasayunka bigayri maa anzala allah fi khaariji manziliha wa beytiha ma jirto. maca dalik, mushkiladda meesha taallaa waxa weeye dembiyada waynu ku dhacnaa. laysa min qilati alcilm, sababtan dembiga ugu dhacaynaana ma aha cilmi la'aan ina haysata iyo faham aynu ka fognay fahmigii diiniga, laakiin musiibada ina haysataa waxa weeye iimaankeenii baa daciifa. qofku marka hadduu iimaankiisu uu daciif yahay wuxuu u helayaa ficil waluu sameeyama aqwaal buu u helayaa, oo ficil wuxuu u helayaa daliil. laakiin qofku hadduu iimaankiisu heer sare uu taagan yahay
marka lagu idhaahdo ittaqi illaaha tadrifu caynaah, marka lagu idhaahdo ilaahay ka cabso wuu ilmaynayaa, marka lagu idhaahdo ka joog ilaahay wuu xaaraantimeeyey mas'aladda wuu ka gaabsanayaa, marka lagu idhaahdo ilaahay ma jecla arrinta wuu ka fogaanayaa. marka waxaynu u baahannahay haddii aynu nahay ummad ka tirsan ummadda islaamka ah loona yaqaano ummadda Soomaaliyeed, inaynu laxaadkeenna iyo quwaddeenna aynu saaro caynkeennu iimaankeenna u soo kicin lahayn. walaalayaal, haddii aad macsiyad ku dhacdid oo aanay macsiyaddu ku damqin, ama waajib aad ka tallaabsatid oo waajibka aad ka tallaabsatay aad ka seexan kari weydid, habeenka aad ka seexan kari weyd, marka waxaad ogaataa iimaankaaga waxbaa ka qaldan. waxaan u jeedaa darajadu iimaanku uu taagan yahay. marka bal waxbaan ka yara taataabanaya hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo ogolaado. kow, ta ugu horeysa qof aan iimaan lahayni jannada ma galayo, waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu. cid jannada foodda saarayso oo jannada gelayso oo nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jannada ku abuuray ka faa'iidaysanaysa oo aan mu'min ahayni ma jiro. ilaahayna qur'aanka wuxuu ku sheegay inuu iimaanku uu yahay ama dadka mu'miniintii ay yihiin ee muslimiinta dadku ilaahay fadilay. waxaanu ku fadilay because camal khayra ayay la yimaadeen. oo ilaahay wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar watu'minuuna billah. ilaahay wuxuu yidhi wuxuu idinka dhigay ummadda nebi maxamedey ummadihii uu sameeyey tii ugu fadliga badnayd. sababtu afdaliyadda idiin siiyana waxa weeye buu yihi nebigu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waxa weeye ta'muruuna bilmacruuf, khayrka ayaa isfartaan, waxa xunna waa iska reebtaan, ilaahayna waa aaminteen oo mu'miniin baa tihiin. culammadu marka waxay yidhaahdeen islaamku waa laba baal buu leeyahay, aliimaanu waalcamal. taa aawadeed baynu maqalnaa aayado fara badan oo ilaahay leeyahay aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat, kuwa ilaahay rumeeyey ee camalka saalixa la yimi. iimaankan marka xaggee baa laga helaa? iimaanka waxaa laga helaa fi lqalb. iimaanku keliyaha kuma jiro, cududda inooma saaraa, garbaha inooma saaraa, cududda inooguma jiro. iimaankan waxaa laga helaa fi lqalb. qalbiguna qalbi bani aadam wuu isbadbedel badan yahay, oo laga yaabaa intii aan u soo socday masaajidka waxaan ka imi sheekh aadam, intii aan u soo socday aan ka soo lugayey masaajidka ilaa iyo masaajidkan, inuu wadnahaygu intaasoo goor u isrogay oo u isbedelay oo niyaddeedu ay isbedeshay. laga yaabaa qof waloo halkan yimi intuu soo socday inay intaasoo goor iimaankiisa iyo mabda'iisa iyo niyaddiisa ay isbedeshay, waayo shaydaan baa kaa shaqaysanaya. adoo niyad wanaagsan gurigaagii kaga soo baxay oo le waxaan doonayaa ina xalaqat alcilm, muxaadarad ilaahay lagu xusayo, nebiga lagu saliyayo sala allahu calayhi wasalam, dadkii saalixiintahay carabka afka aan laga qaadaynin, inaan ka qayb qaato ayaan doonayaa buu haddana shaydaanku intuu ku bedelaa buu ku odhanayaa bal hebella iskala soo sheekayso, hebella arrintaas aad uga baahanayde bataana ka warayso, hebel iyo hebel xagga arrimuhu marayaan. wuxuu bedelayaa iimaanka, niyaddaadii ayuu bedelayaa. lidalik nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inamaa sumiya alqalbu min taqallubih. qalbiga waxaa loogu bixiyey qalb, wuu isrogrog badan yahay, wuu isbedel badan yahay, taqallubkiisa ayaa fara badan.
marka wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam asagoo tusaale inoo tusaya oo doonayay inuu wadnaha tusaale u siiyo wuxuu yidhi inamaa mathalu lqalbi kamathali riishatin mucallaqatin fii asli الshajara yuqallibuha الriixu dahran libatn wuxuu yidhi wadnuhu wuxuu ka dhigan yahay baal lagu xidhay waad garanaysaa baalkii gorayada oo aad dunyar ku xidhid laan halkaa taagan ama laan bartaa ku taalla oo hawadu markay dhinacan kaga dhufataba dhinacaysu wareejinaysa buu wadnuhu bini aadamku uu la mid yahay buuhi nebigu sala allahu calayhi wasalam yacni meel la salka kuma hayo waxaa intaa inoo dheer inuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi لقلب بني آدم أشد تقلبا أو أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليانا وحلو ودنها بنا آدم وحو إسكبت بدل بدنيها بيها كرية هدي إن يا ربي يا ضبك آد سارتد ومركا أي بيه كران أي بود كسرعة أيوب بن آدم كودنيه سرعة ودنيه وكسف أذكتب النبي صلى الله عليه وسلم أي كسف بدنته وحكى له عجيبة إنه النبي إنه شيء صلى الله عليه وسلم ووحيري إن قلوب بني آدم ابن آدم كودنيه سأرضا كلها مركا الله وضع أروريه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو يصرفها كيف شاء ودنها بنا آدم كأردن لبفراد وإلهي إليه سبحانه وتعالى لحدود كتشيران سيدو الدنوب بدل مركز سوري النبي صلى الله عليه وسلم وحي النور رعيه وحي قال وحت هذا المركز النبي وحي اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك إلهي كي ودنياشا تشيديو كي تشيديو ودنها يجا واحد أتشيديسا طاعت هذا عبادة هذا ولا ليا وحكى النبي صلى الله عليه وسلم إنه شاغ ومبدأ دنيا ودنهن وكسر هدي عد مساجد كي صوغ شيء oo ilaahay uu ku soo hanuuniyay baroosinka dhulka ha dhiganin shaytaanka naftana haysa siinin shaytaanka iyo makaayidkiisana ha aaminin waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay iimaanka wadnahaaga ku jira xaaladda uu ku joogo kuma joogayo mar walba oo wuxuu yidhi dhegayso xadiidka ina aliimaana la إيمانك ويل وحكو جبوبا وضنها في جوف أحدكم وضنهين أي كجبوبا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيمانك كما يخلق الثوب سدو خميس كاد حرمتهاي يا عمامة أد حرمتهاي يا سروال كاد حرمتهاي يا كوفية أد حرمتهاي أي شركة يقول دول جبوبان أيو وإيمانك يقول وضنها يقول جبوبا oo wadnahani haddii aan iimaanka la jadiidin wuxuu noqonayaa baali oo adigoo isla wallaahi mu'min baati oo waad hagaagsan tahay ayuu shaytaanku kugu soo maaxaya oo wuu kugu soo soconaya oo gooru ku duufsadayba garan maysid maxaad ku aragtaa waxaad ku aragtaa markay salaadu caade ku noqotay cibaado ku noqon weydo oo fiirsada salaad baad gelaysaayoo takbiirat alixraam baad imaamkii la qabsanaysaa imaamka markaad la qabsatid faatixada markuu dhaafo suuraddu akhriye garan maysid marka ragcadda saddexaad aad maraysa adigu qudhaadu hadduu imaamku uu qaldamo ama uu rukuuc ka boodo ama tashahud uu ka boodo hadduu qof subxaana allah xagga dambe ka yidhaaha adigii baa shakiyaya haddii aad shakidid adiga oo cid kale subxaana allah odhan weydid adigii buu shaki kale ku sii furaysa odhanaysa waa nin adigii yara baxaye malaa intiiba lagaa gaadhsiiye iska aamu oo shibta gal markaase hadhow ayaa imaamkii iyo idinkiiba isku dhex daadanaya waxay taasi caddaynaysaa waxaad aamintay iimaankaagu inuu kugu jirayo wadnaha
iimaankina wuu gaboobo cibaadadii buu caado kaaga dhigay soontii waxay noqotay caado oo waad soomaysaa markaad soontid macsiyadii ay kaa ilaalin jirtay kaa ilaalin mayso wixii xumaaya ay kaa reebi jirtay kaa reebi mayso gaajo iyo haraad umad ka dhaxlaysa marka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku leeyahay wadnuhu iimaanku wadnahaagu ayuu ku gaboobaaye waxa ilaahay weydiisatana waxaad tidhaahdaa fas'alu allaha an yujaddida aliimaana fii quluubikum waxaan odhanaysaa allahuma jaddid aliimaana fii quluubina ilaahayow wadnaha iimaanka noogu cusboonaysi baad odhanaysaa walaalayaal waxaan doonayaa inaan yaro taabto astaamo ku saabsan maxaad ku garanaysaa inuu iimaankaagu uu ka tegay meeshii aad ku ogeyd maxaad ku garanaysaa inay iimaankaagu uu daciifay oo uu fogaaday oo uu guray astaamahan inoo tirinayaa bal xasuusta ilaahay subxaanahu wa tacaala waqtiga haynoo barakeey waxaa ka mid ah qaala alculamaa waxaa ka mid ah alwuquucu fi lmacsiya inuu qofku dembiga si hawl yar ugu dhaco si hawl yar inuu dembiga ugu dhaco asagaan garanaynin oo ammaan kaba filaynin baad arkaysaa asagoo dembi ku dhex jira waxaad arkaysaa laba qof oo qof xamanaya inay si hawl yar ay tahay adiguna inaad dhinaca kaga qabatid aad tahay war ma ninkii reer hebel wallaahi oo billaahi ninkaasi caynkan moodayay ma aha oo halkaa adiguna aad sheekada kaga sii qabatid waxay ku tusaysaa markaas si hawl yar haddii aad macsiyadda ugu dhacdid inuu iimaankaagu uu sii gurayo haddii aad maqashid music ama musiiqa aad adigu markaa iskala sii wadid ama aad iska dhegaysatid ama aad iska dhagatirtid oo aanad ka diiqadoonin dukaan baad gelaysaa ama meel baad gelaysaa ama warkaad daawanaysaa aljaziira sida isha ugu haysaayo music bay ciyaareen adigii diiqati nafsi maad dareemin kamaad xumaanin waad sii waday waad iska sii dhegaysatay inaad macsiyad ku jirtid ma ogid waxaad ogaataa inuu iimaankaagu uu daciif yahay waxaad arkaysaa gabadh qaawan ilaahay laga yaabaa inuu idinkayda asture waddan muslina aad joogtaan laakiin waan arkay waxaa ku dhex nooshiye laakiin waxaa laga yaabaa annakoo kale inaanu aragno gabadh qaawan oo dee labayk allahuma labayk in yaro cawrada soo asturtay mooyaane wax kale iska soo dhigtay oo haddana kuu khidmadaynaysa ama tigidh kaa iibinaysa ama cunto kaa iibinaysa ama lacag kaa qaadaysa oo inaad eegtid oo aad la hadashid aanay waxba ahayn taasina ay tahay macsiyad aad ku dhacaysid qul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim ilaahay wuxuu uhi waxaad ku tidhaahda dadka mu'miniinta ah inay ishooda ay dejiyaan oo aanay macsiyadda eegin gabadha aanay eegin laakiin iimaankii baa guray markay gabadhu sida ay ku hortaagan tahay adigu maba dareema sidaad macsiyad ku jirtida waad la sii wadaysaa taasi waxay daliil ku tahay inuu iimaankaagu guray inaanay meeshii waxba ku hadhin waayu nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih waa ninkii macsiyad iyo dembi iyo wax munkar ah oo shareecaddu ay diiday arka war gacanta ha ku bedelo faman lam yastatic kii gacanta kari waaya fabilisaani war carabka ha ka hadlo ha ku dhawaaqo kelimadda xaqa ah ha sheego ha yidhaahdo walaala is astur ha yidhaahdo waxaa ma ogolin waxaa raalli kama nihin fabilisaani faman lam yastatic qofka kaa kari waaya buuri nebigu sala allahu calayhi wasalam fabiqalbih wadnaha ha ka naco markaasu muxuu raaciyey nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wadalika adcafu liimaan iimaanka inta ugu yari waa karaahadda aad wadnaha ku haysid inaad yaro karaahdid macsiyadda
annakuna waddan baanu joognaa aanu aragno rag gacmaha is haysta rag isaka isku dhunkanaya dumarkii intay ka timi rag halkaa isku haysta kursi iskula fadhiya oo haddana aanad dareemaynin xanuun oo aanad odhanaynin tollahi maxaa waddankan idhigoo kale amad odhanayn waa niyo kalimat alxaq ma idhaahda aanad odhanaynin labada dumar is haysa ama ninkay gabadha is haysa ama war xaqa kelmad ma ka idhaahda aanad odhanayn dareenna aanu kugu jirin marka waxaad ogaataa inay tahay min dacfi aliimaan inuu iimaankii aad iyo aad u guuray taasina waxa weeye ta ugu horaysa haddii aad markaa isku aragtid taa oo aad aragtid macsiyadii aad ku dhacaysid ama reerkaagii ku dhacaya macsiyad waxaad arkaysaa annaka musiibad baana haysata Canada musiibada Canada na haysata waxa weeye dumarkayagii xitaa kuwii jilbaabka haysta cabaayadaha xidhnaa iyo niqaabka xidhnaa ayaa saqda dhaxay guuraynayaan hadda waa saqda dhexe 12 ayay baxayaan xagay tagayaan ma qiyaama leyl ma salaatul kusuuf wal khusuuf ay tukanayaan maya aroos bay tagayaan markaasa ilaa iyo subaxdii bay soo ma sha Allah aad oranaysa xaga ku maray mariyada saalixiin soo akhrideen maya ma saxiix al-bukhari baa soo dhameyseen maya ma qiyaama leyl baa soo tukateen maya heblaaya loo guursaday oo aan arka soo tumanay arooska ninka ee Soomaaliyeed hadduu aanu dareemin inay taasi qalad ay tahay ay macsiyad tahay ay dayuusnimo ay tahay taasi waxay cadaynaysaa inuu iimaanka goray waayo wuquucak fi al-macsiya si hawl yar bay noqotay talabada aad dareemaysaa walaalayaal waxa weeye ay culimadu sheegeen qaswat al-iimaan aw ash-shu'ur bi qaswat al-qalb inuu wadnahaagu aanu jixin وإلهي سبحانه وتعالى مركو كهذا بني إسرائيل قال ثم قست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة مركو بني إسرائيل معاصي يسو سميين ودن وسوتري الماء يدلين نبي موسى وكهرية مصائب كيسو مريين وحول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة wadnihiinii baa adkaaday oo sida dhagaxa ayuu noqday dhagax halkaa taagan oo laabta kuugu jira ayuu noqday saddexaad aad ku garanaysaa waxa ka mid ah cadam al-itqaan al-cibaada in al-cibaadadii ilaahay ku faray sidii ilaahay ku faray aanad u gudanaynin oo salaad bilaa khushuuca bilaa itqaana aanad garanaynin waxaad akhriday tashahhudku ku yahay adkaarkaad akhriday markaad waxaasoo dhan aad aragtid waxaad isku aragtaad ogaataa inuu iimaanku uu daciifay waxaa kale ka mid ah attakaasul inuu qofku laysinimo iyo caajisnimo iyo kasal uu la yimaado markay timaado fii taacati illaah markay timaado cibaadada ilaahay qiyaama leyl uma kacayo صلاة الفجر ومكعيو لكن شقده وكعيا صلاة الفجر وهب صامنيا لكن شقده ما هب صامنيا وكما هب صامنيا صاعد وكبع سنيا شقده الله در ونك قال كو ادر سي ونكسب وصبحيا او اتقام لا ايمانيا لكن عبادتي الهي فري سجتي اي كل دكسي دقدق باي كل ماينيا او كتي يعني وحي عضينا ستاسي inuu qofkan aanu danka lahayn diinta iyo cibaadadii ilaahay subhanahu wa ta'ala salaat al-isha waynu wada tukanay caawa imisa qofo inaka naga mid ah ayaa is xisaabiyay oo yiri tolow ilaahay salaadii aan u tukaday caawa ma iga aqbalay misamaya waxaad arkaysaa dhalinyaro kubadda saacado ciyaaraysa hadda saacaday ciyaarayaan way ordayaan sidii fardaha isma taagayaan waxay ka soo safarayaan meel fog hebelow isoomar in kubadii dhaafi hebelow hayga imanin hay ilaawin و بقول قربو حسوسينيا مدة دير سو soconayaan اجتهادka uu ku sameeynayo ama uu galinayo في شيء تافه وحن لا يسمن لا يغني ولا يسمن من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع
markay laakiin cibaadada timaado salaadii degdeg buu uga baxaya asagoo sunnihii aan tukanin oo aan dikrigii nebigu sala allahu calayhi wasalam uu inagu dhiirigeliya aan buuxinin ayuu boodaya dumarku suuqa moololka ayaa laga yaabaa inay sidii fiidmeerta soo wareegaan oo aanay fadhiisanin oo kabuhu kaga dhammaadaan laakiin xalaqata dikr meel xalaqada oo ilaahay lagu xusayo oo nebigii lagu salliyayo lagama yaaba inay tagaan laga yaaba inaynu ijtihaadka gelinno meelo fara badan laakiin markay timaado cibaadada aynu la nimaadno takaasud iyo taraakhi ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala markay salaada u kacayaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo kusaal ah oo laysinimo ay saaran tahay ayay kacaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala taa ogsoonow haddii aad markaa dareentid arrimihii adduunka inaad u firfircoon tahay oo aad maasha allah aanad jeclad inaad ka hadhin laakiin markay cibaadadii iyo diintii ay timaado aad cagaha jiidaysid waxaad ogaataa inuu iimaankaagu uu daciifay oo meeshan wadnahan aad sidataa inaanay wax badani ku hadhin baad ayaa ku cad waad ogsoonaanaysaa waxaa kale ka mid a cadamu ta'ahur biqiraa'ati alqur'aan inuu imaamku markuu qur'aanka uu akhriyo uu faatixada akhriyo ma dhuuxaysid ta'ahur kugu samayn maayo odhan maysid ilaahay subxaanahu wa tacaala 17 goor buu igu amray inaan akhriyo suurat alfaatixa oo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin tolo ilaahay muxuu uga jeedaa alxamdu lilah macnaheedu waa maxay haddii aan macnaheeda aan fahmo oo aan fahamsanahay maxaan talo ilaahay ugu mahadnaqa qur'aanka ma dhuuxaysid oo qofku ma dhuuxayo wuxuu odhanayaa wuu qiraa'adu heba sheekhaasi qiraa'adiisu waa qiraa'ad qurux badan sheekh sudays qiraa'adiisu aad bay qurux badan tahay sheekh maahir almacayqil qiraa'adiisu way qurux badan tahay laakiin midka odhanaya qiraa'a mu'athira waa qiraa'ad wadnaha ku taabanaysa wuu inagu yar yahay laga yaabaa sheekh aadan ama imaamada masaajidadu hadday nagu tukiyaan salaat alfajr cabasa watawalla war miyuu waashabeyn ninkan inuu shaqi naga dambaysa miyaanu ogeyn ma cabasu inagu dhammeeyey waxaa jira wadaadada ka mida salaada iyadu masaajidaydu 10 mir baan ku dhammaynaa hadda sunankii salaada waajibaat الصلاة أركان الصلاة قراءة إيا الذكر إيا التكبيرة إيا التحميدة إيا التسليمة انت بمركة اللي سوء أرلية وطبان مرن مساجك كان وطبان مرن مركة نصلاة دي كبحنا ميد بايس سوء كايدو تقول مركة السؤال وارهي يا شيخ هذيك هذا شغل كادم بينه كان مسكت احفر دي المساجد أنا كشيخ أنا قدم يسوي نود الدج waxaan ku leeyahay xagaad ka shaqeysaa wuxuu shaqo ma haye shaqo doon baan haye laakiin dee bahasha waa nagu dheerays waxaan aray waa 8 habeenimo cishaahi weeye gaar aad application-ka u soo dhiibaysana ma jiro shaqo aad galeysana ma haysid maxaad ku degdegaysaa wuxuu adeer buu yiri ragcadii labaad markaad marisay horta salaadii ugu dambeysay buu anigu hargeysaan joogay buu yiri caruurtii kala xaraasay ilaahay idin barakeeyo baan ku barakay xaraaskaas bal 10 kaamirin ilaahay subhanahu wa ta'ala amaah qofku mu'minkii markuu salaadii uu ay diiqad ku noqoto goormuu dhamaynaya goormuu ka baxaya waxaad ogaataa marka inaanu meeshii iimaan ku hadhin inay iimaanka uu aad u sii gorayo tasideedaad ama toddobaad lagu garta qofku inuu iimaankiisu uu daciif yahay waxa weeye markuu qofku arko maxaarim illaahi tuntahak falaa yatamaccar wajhu ghadaban lillaah markuu arko xuduudka ilaahay oo laga tallaabsanayo laakiin aanu dan ka lahayn xuduudka ilaahay lagu tumanayo oo aanu dan ka lahayn dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed oo Kanada la joogta waxaanu kulanaa maalinta salaasada kubad bay ciyaaraan
kubadda la ciyaarayo nin baa nagu jiray markaa isniintii noogu dambaysay waa maalinta isniineed ninkii markaa ilaahay buu caayay subxaanahu wa tacaala ilaahay ayuu caayay kelmaddii ilaahay la caayay dhegtayga soo dhacday qoladii halkaa joogtay baan ku idhi wanima mid ilaahay caaya idinku jira maya bay idhahdeen ilaahay caaya kara ninkii ilaahay caayay subxaanahu wa tacaala ayaa nin iska waalan buu ahayoo xidigaha tirinaya iska yara fayaansanaa ninkii difaacayay buu reerkoodii caayay war ma idinkoo reer hebel ayla hadlaya buu yidhi annakaa reer hebel waxa ku samayna ninkii reerkiisa la caayay ninkiiba laga qaban waayo war maxaa dhacay baan ku idhi hebel wax ninkan annakuna reerkaygii buu caayo war ninkan miyaanu hay ninkan markii uu qarinaysay markii ilaahay caayay dee ilaahay asagaa ilaah wey laakiin annakaa reerka buu leeyahay ilaahay waa ilaahay annakaa reerka marka maxaad u garanaysaa qofka waxaad u garanaysaa inaan meeshii iimaan ku jirin inaanay iimaan ku jirin ayaad garanaysaa waxaan garanayaa subxaan allah sheeke aan hore ii soo martay oo cajiib ahayd oo annaka marka sheekh waxaan ula tegay sheekadii sheekh cabdilcasiis ali sheekh waa muftiga magaalada sacuudi waddanka sacuudiga ee mufti alcaam sheekh markan qisadii u sheegay wuu hadli kari waayey wuxuu ku waashay laa xawla walaa quwata ila billah laa xawla walaa quwata ila billah allahuma laa tuftinna allahuma laa tuftinna sheekadu maxay ahayd sheekadu waxay ahayd annakoo joogna magaalada la yidhaahdo Calgary waa magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yidhaahdo Alberta ku taala waani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh ilaahay subxaanahu waa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama dee timo dahaba leh mariyo ku dhajisan soo xidhatay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markaa markas la yidhaahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar la mida oo dadka gaaladee doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay mafaatinkii ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii marba waxay tidhaahdaa that is beautiful way aad bay u qurux badantay ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala tawxiidka inuu ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu ilaahay halkan inala joogin inaanu ilaahay inagu dhex jirin inaanu ilaahay inan lahayn inaanu ilaahay reer lahayn inaanu ilaahay way ka mabsuuday waxay tidhi that is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nebi maxamed iyo icjaaskiisii iyo caalam alajinna iyo embryologyga iyo inuu nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam qur-aanka loogu sheegay maraaxilu ibni aadamka loo sameeyo iyo maraaxilu waxaa dhan baan u sheegay aad bay ugu mabsuuday marka shantii rukun u dhammeeyey ayay tidhi I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tidhi qofkan ku hortaagani qofkaad moodaysid ma ihi waxay tidhi anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay dee waxaanad arkaysid ilaahay wixii qalabkii uu siiyena waan iska zuulay oo waan iska gooyey gabadh baan ahay ilaahay dembiga may dhaafaya ilaahay dembiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa isatolo ma eegtaa mise waa dembi
إلا ما قبرنا ما هننا ما هنقنا ما هيمك ما كربادو أكتا وبوجهي أركتا مسوى الذنبي ميت كتشيستا محاد أشرح ذا هدي أي مسنتو حقان جية ما حجاب نحن الدمر كانوا جية كودا مسوى وحن إلى هذا خميس وحده رجيت الصور نحتاج أديكو أنت الحنبارس إلهي بركة هدي أن دمر كأوجد بيو لهذا إذا كل هذا وار دمر كيني نيم بلاتو كنا يدوي دليسان هدي أن هل كان أن إذا صور نحت شوتينا لخشوع وداخدو كبودي هات وكادي بنقولي مركا وأرين وين والذنب إلهي لقى سبحانه وتعالى خلق إلهي كسيي سبحانه نمبو كاردي نمبو كو أبوري قرار باد قالي إن الدوين إسكو مودد إن الوحيابة إسكو بيرتد إنو آلد إلهي كسيي زول زيادة قويسد إن المال كالت وحيابو إلهي سبحانه وتعالى كو تلقى بعد حق شيء بل أكادي إلهي وحي حول يري إن السعودي كتقو مركا وحن لكل مي عبد الله الحقيل ودد إلى هذا أنا وشيخ يجي مفتي ويجي مفتي بنقول يا فضيلة الشيخ حالة سدا ساترتا فما الحكم وذاتك أنت نكفي لي إنه فتوى السيو وضوخي مركاسون مرة رد الله عليه قال أيعصي الله بهذه الطريقة ومساسة إلهي الدم اللي قلها إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله مركاسو مرة يقسي تشيستا مركاسو يغنور قريب وذاتك هل كاسم أكفر يا شيخ وحنقول يا شيخ قفك السوغية كان إذا كنا قنيا افتينا في المسألة شيخ مركا يا أمس وح الله لي يقول إلى هذا مركن له الله وحي هذا لا حول ولا قوة إلا بالله يا شيخ قبل ما ين مسلم مسجل بين كدينا لا حول ولا قوة إلا بالله مركاسان كور يا شيخ أزيدك من الشعر بيت أنكوسي كرني إن وأنا جوردنا محين صمينا ما كاسوري إنا لله وإنا إليه راجعون مد بفر يا شيخ قل له يكتب فنجعلها أو نضعها أمام اللجنة فتوذها سوقرة وذاتكها سوقرة وحن أجد بيننا وإن قوينات معصية داسي فردقي مركا وحي ميشة شوقي أوردن حنششق ورمية دعوة ما إله بس الدنب لو قال من معصية دا وحن درمي مركا مجلس كان إن دنبيجا إذا هاي لقجلي كنذا لقجلي قف قالي وكجلي إنه طابتي وذاتك حركاتشوجا وحنا يعد يصير مركا وذات كان يهرف ليه إنه دارين إيمان ودنيه سأوكتشيو إنه ودنيه سمركا آنو أرادين وآنو أصغنا أنجنين إنه إلهي سبحانه وتعالى إيمانك كدايي وإيمانك كأبوري وحنتي على مركا ولا ليال إن أنت كسو جناندو إلهي سبحانه وتعالى وقتك هاي نو بركة لكن على مظفر بدن باكرة والله يسكو أركو هدي أنت طابتي أدسكو أركتد أما أد أوقاتد إن العلامة ضحى أي أدوكو على مدى كل حترتد أيهين إسقاد ونفت بدبادي ووضنها وحتكر شيء من ذكر الله وتلاوة القرآن يا مساجد كل يمادو يا نفط الآدو حكم يسد ويا نفط بنا آدم كي عجيب وحد برتد أي رعضة هديت مركز طاعة الله يا قيام الليل يا الذكر يا قراءة القرآن يا وحيابها إلهي وشعري نفط كما ويلي سيدنا نفط ويكو صور راعي هديت كم مشغول السيد وحيابها بلا معناه عيار الله داونيو سوق دمر سوق لقينيو عرور كبهودي يكوفي هودي لقى شقينيو وحيابه أمور الدنيا أدسكم مشغول يسيد أيضا كوف كلتك تي أي كلف فقاتي بعد أركض دونتا مركم ملك الموت ويمادو
aniga intaas iga tahay ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أدري إن ولدد وقت السؤال يجواب أي جيران ينكله حكمي قبل محاي كقاعد علماء هرتش علماء ويسكو خلاف وي شيخ آل الشيخ يا عبد الله المطلق وشوقي مركا يا الحقين إن يا الغديان انت وي شوقين تنا رحمهم الله انت كنا حفظهم الله وي وحفت ودا ويسين كرواية وحنوتقي مركا شيخ الله إله هذا عبد العزيز إن الفوزان عبد العزيز الفوزان وحي سيهين شيخ صالح الفوزان وانا شيخ نلتشوغي مرايكن كشنس النضاد واحوال الغرب يا مشاكل كغرب كتشرة امشى السنوات لدح النولا مسألة دي مركا وحيري وحواجب إني قبرني سيدي وإلهي وأبوري اسكو عليسو ومركا waxaan ay isgelisay iska saarto in isku muddo hormoonaadkii loogu talagalay lidhukuur oo dhukuriya marka male hormones bay dhahdaan marka raganimadii waa inay soo celisaa marka irbada isku mudaano irbadahani gar timihii buu ka jaraya codkii buu ka dhigayaa cod naacima oo soft ah in waxay isku mudaan hormoonaad unthawiya marka waa in hormoonaad dakariya isku muda oo asligiisii ku noqda waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sanada ah iyo lacag fara badan marka loo doono marka aalat dhakra loo doona ila aalat untha wamka ayuu xambaarsan yahay gabadh buu iska dhigay marka waa nimada lagu soo celiyaa mar labaad waxaan muddo qaadanaysaa fadilati sheekh muddada maxaa la sameeyay kayfa yu'aamal ma'a hada al-insan sidee baan ula macaamilnaa marka wuxuu yidhi fi lwaqti alxaadir waqtiga xaadirka ah waxay asligu isinu xukunka sharciga uu ognahay qofka bini aadamka waa saddex waa dakar waa untha iyo khuntha saddexdaa weeye ama dee waa nin ama waa gabadh ama waa labeeb marka wuxuu yidhi labeebkii ma gelin karo oo ilaahay saa umuu abuurin ayadaa iska dhigtay oo asagaa iska dhigay لكن بحكم الظاهر كي هدي قفكو الدنيا إنه مساجد يمادو ولا بد إنه مساجد يمادو وإنه قسم الدمركة لو بيريا مركا قسم الدمركة وين لو بيريا حدو مركا عدكو وصون نغضو وأركو مركا إنه وسوق ليو قسمي أما النوعية الرجولية أما نوعية الرجل وسوق ليو مركا وين مركا حق الدمركة لو سو وليشي وحن مغلي waxaan u malaynayaa xagga ragga cafwan waxaan u malaynayaa inay ka dhacdeen mas'alo saasoo kale ah inay namsa ama Switzerland iyo Sweden meelba ka dhacday imaamku markaa wuxuu ka dhigay imaamkaasi xukm al-khuntha laakiin sheekh al-Fawzan wuxuu xukm al-khuntha iyo aydan inni wadaadkan la yiraahdo Salman al-Awda xukm ah in loo celiyo asligiisii qofka wallahu a'la wa a'lam ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص صفة إلهي سبحانه وتعالى الأنصار وكشت المابيه والأنصار أيقوا باهن حديث كنا وهم قشين حديث كنا نبي صلى الله عليه وسلم نكي نبي يميل يا رسول الله صدح إشو حبما عنن صدح إشو أي مرتي قادوا نبي صلى الله عليه وسلم وريريه سي قيس أصوم مري markuu waxba ka soo waayay nabigu sallallahu alayhi wa sallam minbar ku yimi wuxuu yiri war ninkan ii martida ayaa marti qaadaya
nin ansaariya kacay ninkii baa yaa rasuul allah martidaada anaa marti qaadaya markaa waa kii kaxeeyey sida sheekadii aynuu ogeyn ninkiis ansaarigana waa kii reerkii intuu u geeyey gabadhii ku yidhi waxaan cunno oo ay wax ninkan la siiyo ma hayna waatii tidhi cashada carruurta digsiga u saaran digsiga ku jirta ee dabka saaran unbaa taalla seexi buu yidhi carruurta waa kuwii markaa ninkii la soo fadhiistay ee cuntadii gacanta gelgeliyey iska dhigay cuntada cunaya ayagoona cunto aanay afkooda gaadhaynin ka bacdina ninkii markuu dhargay subaxdii waa kii nebiga u yimi sala allahu calayhi wasalam ninkii ansaariga waa kii nebiga ugu bishaariyey aayaddan wayu'thiruuna calaa anfusihim marka fi xaalat aliithaar imaam ashaafici qaala fi lqurubaati madmuuma wa fi gayriha maxmuuda في القربات المذمومة وفي غيرها محمودة الإيثار كمركا وحيري مركا قربات كايتماد حق عبادة ايتماد إن قف اسكه الرئيسيسيد أتفضل السيسيد ومذموم والله ما تشعلا تصالوا كلو مثلا قف باصفكي هرميل باكبناناتي وفرجد إلهي سبحانه وتعالى كسي وفضل إلهي وكسيي halkaad markii adugu intaad meeshii aad geli lahayd kii ku ag tagnaa baa tiri gal waa qurbad markaa waa qurbad iyo fadli ilaahay ku siiyey marka qof baad siisay imaama shaafici taa lama ogolaa buu yidhi oo hadiyad iyo fadli ilaahay ku siiyey ayaa tiri ma doonayo qof kale ha qaato ama maalan adigoo helaa ilmacuuna walma'uuna ama tadkirad ila alcumra adoo 100 goor soo cumraysaba tadkirad baad heshay cumro ah waxaad waniyo anigu ma dooniyo iska qaado adigu tadkiradda marka fi alqurubat bay gashay waxaad ka kaaftoontay marka ajrigi iyo fadliga ilaahay ku siiyay marka imaam shaafici wuxuu yiri taa ma wanaagsana laakiin waxyaabihii adduunka inaad walaalka iithaarka cunto aad siisid asaga adigoo gaajoonaya biyo aad siisid adigoo haraadan sariirtaada uga kacdid adoo daalan gurigaaga aad u soo dhawaysid soo galisid yani waa min al-ashyaa al-mufaddala niman daawanayay in gaal ahayo muslimay wuxuu ku muslimay bifadl iithaar inaka daawateen mooyaane nin buu ahaa in imaka daaciya oo Europeana wuxuu yidhi aniga iyo isaga iyo xaaskiisa ayaa waxay haayeen tourist bay haayeen siyaxad bay u baxeen siyaxadii baa iyagoo ay soconayay bay lumeen magaalada ku socdeen iyo hudheelkay ku socdeen ayay ka lumeen in badan bay socdeen gaaladana waa taqaanaano waxay doonayeen inay soo arkaan tuulo walba inay meel walba maraan bay doonayaan ninkan iyo islaantiisii oo daalay ayay guri ku garaaceen ninku markaa wuxuu yidhi ninkii albaabka naga furay turki buu ahaa ninkii baa waxaan ku yidhi war adreeskan ma garanaysaa meel uu yahay wuxuu yidhi garan maayo laakiin meel idiin dhowi ma jirto waana fiid aniga caawa ayaan ku marti qaadaya ii soo gal guriga wuxuu yidhi gurigii baa maqsinkii baa yara suga buu yidhi gudihii buu galay markuu gudihii uu galay soo gala buu yidhi aniga iyo xaaskaygii buu meeshiina seexiyey cuntuuna siiyey wuuna marti qaaday si wanaagsan buu noo soo dhoweeyey subaxdii ayaanu kackacnay annakoo wanaagsan waxaanu sid markaa u mahadnaqa wuxuu yidhi markaa guriga albaabkoon ka soo galay iyo albaabku ka baxay waa kala duwan yihiin albaabkii uu ka baxay ayaan yidhi excuse me war guriga cidi ma joogta waa leela hadli waayo albaabkii baan furay waxaan arkay buu yidhi ninkii asagii iyo carruurtiisii iyo reerkiisii is urursaday oo daaradda hurda show guriga gebigiisa wux maqsin buu ahaa buu yidhi maqsinkii buu nooga baxay waxaan ku idhi buu markaa waa nin daaciye iminkoo weyn waxaan ku idhi buu maxaa sidaa u samaysa wuxuu yidhi diinta iyadu waxay nagu dhiri gelinaysaa inaan ikraama dayf inaan dadka martida ah aanu xaqooda aan sino waa kii nebigu sala allahu calayhi wa bukhaari fi lxadiid saxiix fi xadiid abi hurayra man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfa wuxuu yidhi bal islaamka ii sharax wuxuu yidhi xog badan ka garan maayo qudhaydiya iska miskiin baan ahaye bal kitaabkan qaado kitaabkii baan qaatay buu yidhi kitaabkii baan akhriyey wuxuu yidhi diinta cajiibka waayo nin kale buu yurub ila degan intuu aniga
يحاسكيgan aanu aqoonin gurigiisa uga baxo ma dhacaysa buu yiri wuxuu yiri tii aawadeed baan ku muslim marka min baab al-ithar hadii taasoo kale arrin ku saabsan arrimaha adduunka wala ba'sa min marka nacam iimaanka ay ku salaysantay laakiin hadii ka noqoto dhaqan iminka waxa jira dhaqan ma jiro waxa jira xeer jabja baa jira oo anoo reerihiina hadaan ku imaado waxa way marti adoo ikaraahiilaysanaya oo le waniyo kan ilaahay goormu ka furdaamiya ay hadana maqsinka ay soo gelinaysa islaanta la xog soo sameeyad oranaysa shaha ii soo dhigaysa marka way kala waa kala xukum naam wallahu a'la wa kum maqlay wala هرت ابن الحزم رحمه الله وحيي سؤال وحوي وحيي ودن كان وحنون هاي شقالها سي مركا إن أضو الشقدي كشرو الشفتي كشرو أيو جمعيه سو قال عيدكم بدل سنة ما تشرتو إن عنك سوساسو جمعيهم كلها في حكم كيدوام محي سو كمان صحين وحوي مركا ابن حزم وحيي مركا بشكل عام صلاة الله إيجو لا يجوز الصلاة قبل وقتها ولا يجوز الصلاة بعد وقتها لبدا قربة إن وقتها الصلاة أي تاجنت كهرت وين تكتين لما أقرأ كبعدنا إن تكتين لما أقرأ أنت وحي يكون لر صلاة الجمعة وفرق يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع culimadu marka waxay yiraahdaan ayagoo aayada cuskanaya wax la iibiyo iyo shaqo lagu jiro oo la shaqeeyo waqtiga jumcaha ay khudbadu socoto haday ku soo beeganto waa xaraan rizquna waa xaraan bay'una waa baatil xitaa kala iibsiga kala iibsanaya bay'u la waa baatil laysa lahu asl way waqtiga salaada ay ku jiraan baad ulama halkaas ay ka gaareen nabiguna waa kii noo sheegay saddex jumce haduu qofka ay dhaafto waa inuu dib u shahaata صدق الجمعة دي كل رافض ويسكحية وين يكون دبء شهادته وأنا مع 10 لقوا قبتها وحاجرتين مركا أنك ودن قالت شوقنا ودن قالان شوقنا نظامك وحو نسينا إياه وواجب وكقد لقيا الشركة ده نؤشق إنه إنه وقتك صلاة الجمعة إننا ننقفين وأنك قال أشقينا ayaad ku oranaysaa excuse me waan soo tukanayay halkaas igu sii hay kulama hadli karo waxaan arkaa marka idinku wadan islaamo joogo oo eedaankii maqlaya oo aan aaminsanahay nidaamku hadii loo soo bandhigo inuu idin caawinayo horta inay salaadi idin dhaafto maba aha wala yajuuz حالات باكرة للضرورة وشيخ بن باز أفتى فيها وشيخ بن باز كذا هذي وأي كم هاي مثلا قف شقة معينة كتشرة وأنكبح كريني سؤال اللي وصل بلغ شيخ وحي هاي دختر عملية جراحية قلية قف بقلية وقت قال له قبتنا ووقت دير الذي طبعا صعب مرة دختر هذا كتشرة حاجة غرفة العمليات قف كاسي مركا ما نبدل لي كرا سكجولك كما دي كرا السبت ده اما كما دي كرا خميس وانا حيسته حكم كيد وام حي مركا تاسو كله لا باس هدي تهيد مرمركا قاركود اي ارين ان دم جمعه walba joogta ana ahaynaytay jimca marmarku u soo beegmay sanadkii mar ama laba goor oo ah lidarura hadi la baas laakiin adigoo muslina oo shahaadanaya oo wadan islaama jooga oo eedankii maqlayo oo waqtigii garanaya oo masaajidkii laga yaaba in khudbadiisa aad dhageysan kartid inaad ka maqnaatid anigu taaqiilu ma hayo si aan u jiideen karaana oo في جعبتي marka inta cilmigan aan akhriyay si aan u jiideen karana garan maayo mana jiideen karo
marka qofka mu'minkii falyattaqi illaah. waxaan shaqada la yidhaahdana waxaynu ugu wada jiraa shaqada waa risq soo maaha, waa masruufka iyo shilinka yar. xadiis saxiixi muslim nebigu wuxuu inoo sheegay 50,000 oo sannadood ka horto ayuu risqaagu qornaa, wax walba qornaay 50,000 oo sannadood intaan adduunka ma la abuurin ayay wax walba qoraayeen. ilaahayna wuxuu yihi waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib. haddaad ilaahay hortii taa aad uga tagtid ama aad uga dagaalantid, ilaahay subxaanahu wa tacaala makhrajna wuu ku siinayaa, meel aanad filaynin risiq buu kaa siinaya. marka taana ilaahay hala tala saarto, taa ilaahay hala tala saarto. waxa inama fara wallahi haddaan idinka sheekeeyo malaa 20 ilaa 30 qisas oo gaal intuu ku yidhi jimcaha ma tegi kartid, shaqadii uga tegay ayaan garanaya. mid shaqadii ku soo noqday, mid gaalkii inuu soo tukado u diiday laga eriyey asaga aawadi, mid intuu shaqadii iyo gaalkiiba iskaga tegay mid ka fadli badan oo shaqo ka wanaagsan oo ka muratab wanaagsan oo ka mushaaharo wanaagsan ilaahay siiyey. boqolaal qisas ayaan haynaa oo aan la noolahay haddaan Kanada degannahay. marka haddii ay noqoto cibaadada ilaahay laa tufarid fii janbi illaah, ilaahay ku barakayo. naam naam نعم نعم ما فهم. horta waa dhab sheekadan wuxuu yidhi aniga ku dhacday booliis baan ahay. waxaasoo dhan waan fahamsanahay, midna waan fahamsanay inaan lagu ciqaabayo, ninkaas ku ciqaabayo waan fahamsanay, inuu ilaahay haddaad jimcaha ka tagna ku ciqaabayna waan fahamsanay. soo maad garan. marka labada ciqaabood kala dooro. wax kalaa jira. horta dhagaysta, waa dhabo waddan gaalahaanu joognaa, waxaana aaminsanay xuquuqda halkan ku haysataan inaanu xagga mid ka wanaagsan ku haysano markaan dhinacayaanu ka eegno. meelo fara badanoo naga fadli badan tihiin, laakiin yaa ikhwati fi illaah, tani waa diin. islaamku ma aha, islaamka waxaan la yidhaahdaa ma aha wax ku imanaya si hawl yar. jannadu waa qaali, wax jaban ma aha. aynu aamino, aynu ogaano, haddiinu islaamka aynu ku dhaqanno oo aynugu dhaqanno sida inaka aynu doonayno iyo markana inaku doonayno iyo marka inaka inoo fududahay, dee islaam ma aha. Suhayb ar-Rumi waa la cadibay. Suhayb ar-Rumi markuu Cumar bin Khataab ka hadlayay sheekadii Bilaal bin Rabax yar dhagaxii la saaray ayuu yidhi yaa amiira almu'miniin undur ilaa dahri. amiira almu'miniin buu yidhi bar dhabarkayga eeg. dhabarkii buu ka qaaday marada, wuxuu arkay, markaasuu yidhi yaa amiira almu'miniin buu yidhi inta raggani dab shidaan ayaa aniga buu yidhi dhabarka ayaa lay saari jiray sida dabka
aniga la saari jiray buu dhiigga iyo dheecaanka iyo baruurta dhabarkayga ka shiilanta ka dhalaasha ayaa dabka dhuxusha bakhtiin jirtay buu ya amiir almu'miniin soomaydun garan suhay in yaasir عمار بن ياسر النبي يقول الصبر لآل ياسر فإن موعدكم الجنة دين كان يسي حاول يركم إيمان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لبيكو أفلحين الإخلاص والتضحية إن يداعد وهايين دينته إن سكرفايس يتضحية إليه ما دين وحول بأهرين دينته تاسو إلهي وقرقاري تاسو إلهي سبحانه وتعالى عزت الشرف كسي لكن هادين إنكو كبقنون بني آدم أما عين نهر شقا لقاء إريا أما عقابة لقوصة دجينيا دي إلهي بهورتا ميشة الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وحوها حمال بوها نين حمال دتك سوق كشقا يستوها صوغو إمام التابعين إمام أهل السنة والجماعة أيها هذا حمال لما يكون شقي سنشري الصوغو يتورت أررنتهاي وقصرت مرة يجوان عين كاسا ألابتها السيدة أيو أركج أيو مقلد شري حي على الصلاة حي على الفلاح نينكي ألابت نينكو أررانا ودبس عدا مو هرس عدا مركاسو لقيت شري markaasuu oran jiray ka fadliga badnaaba ii yeedhay amarkii ilaaha ayaan qaadanaya alaabtooda halka ama ha sii taalo ama cid kale u diro waxaynu ogsoonataan aynu kulligeenba wada ogsoonaanaa ninka dadkeenu u shaqaynaa ayagoo risqa inooma hayaan ina allaha huwa arrazaaqu ayuu lidul fadl ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa razaaqa maaha ninkanad u shaqaysid iyo shaqada ku keentay kafaalada kafiilka ma jirto waxaas wax walba ha noqoto cuqubo waxaan garanayaa subxaan allah maaha sheekadani sheeko faana laakiin inuu ilaahay kugu bedelayo wax ka fadli badan oo ayaan garanaya ayaan idinka sheekaynaya nin sidaa lagu yidhi haddii aad jimcaan ka baxdid ha soo noqonin haddii aad jimcaha aad baxdid ha soo noqonin baa lagu yidhi wuu iska baxay wuu soo noqday wallaahi yani maa zaadahu allahu ilaa ciza markuu ninkii uu soo noqday subxaana allah ninkii gaalka ahaa ninkii ixtiraamu buu u qaaday wuxuu hi nin waxaa tahay man of principle nin mabda' le baa tahay buu yidhi nin mabda' leh oo aan mabda'iisa aan la rogrogi karon la qalqaloocin karon ayaa tahay buu waan kugu ixtiraamaya waxaan garanaya anoo ku jira grade 11 yani grade 11 xaggayga waa iskuulka yani sanad baa iskuulka iga hadhay ayaa wax macallin buu ilaahay igu soo beegay kaatholika oo khabiisa macallinkaasi waqti salaat aljumca waxaan markaa biology aan dhigan jiray alaxyaa baan dhigan jiray maskuulkana ana ka muslina macallinkaasi waxaan ku idhi anigu muslim baan ahay jimcaha waan soo tukanaya wuxuu yidhi dee kaniisadda gal buu igu yidhi kaniisadda markaa iskuul kaniisad buu leeyahay aanu ku tukanno kaniisadda gal buu igu yidhi waxaan idhi ma gelaya ilaahay baan soo tukadaa muslim baan ahay ii fasax wuxuu yidhi haddii aad baxdi waan ku ciqaabaya maxaad igu ciqaabaysaa every friday ad maqnaatay 5 baan kaa jaraya darajadood sanadkii oo dhan jumco walaad maqnaatid ba 5 baan kaa jaraya subxaan allah waxaan ku idhi ilaahay baa amray inaan tukado waan tegaya isabtii buu yidhi jimco walba markan baxay wuu xaas wuxuu yidhi Mr. Rage buu yidhi Rago don't forget your punishment is 5 marks shan baan kaa jarayaa ilaa uu yidhi shanta imtixaanka ugu dambeeya calaamaat النهاية ayuu iga jaraya imtixaankii waan galay على يقين baan inaan dhacayo course-ka yaqiin waayo marka 5 jimco laga jaro xitaa dad imtixaan walba 100% aad keentid assign walba 100% aad keentid xuduurkaagu 100% la yumkin in darajada keentid darajada najaah waan galay imtixaankii baan galay darajada lagu soo dhajiyay gidaarka biology A baan keenay waan u tagay waxaan ku leeyahay sir maxaa dhacay wuxuu waan eegayay I realize you are a man of principle budi
nin mabda la baa tahay buu yiri waa isku baan ku jira Catholic asagu waa Catholic jimcaha uu diiday markan ogaaday inaad mabda leedahay ayaan ku siiyay full mark xabad kaamaan jarin marka saari ficlan waman yattaqi allaha yaj'al lahu makhraja marka waxaan idin leeyahay waa ogtir waxaan oranaysaan de sheekh adigu passport Canadian harta sida tahay waan ognahay kowde haddii xitaa shaqada laga eriyo dawladda ku masruufaysa annaka laakiin hargeysa iyo burca iyo barbari iyo xamar baa laga soo qaylinaya kowda nin carabina waa ii kafil marka de sheekh isku ay qiyaasine annaka ana waxaan idin leeyahay diintu waa halkii ama Canada joog ama China joog ama waqtigii saxaabada noqo ama ha noqoto fi mustaqbal diintani waxay ku imanaysaa bitadhiya inna allaha ilaahay subhanahu wa ta'ala la yudayyi' wixii ajra samaysatan marra maluminayo hadii ilaahay hortii u samaysaana wallahi thumma wallahi adiga oo muazzasa oo mukarrama oo ila haybadii uu ku dhameeyay ayaad wax warad weydiisad ku siinaya marka anigu waxaan leeyahay ittaqullaha mastata'tum soomad ilaahay laga cabsado dadkana si adag ugu sheega war anigu muslim baanahay saddex jimca wax ka badan jimca macquul jimca laba jimca macquul laakiin saddex jimca la yumkin ina ku adkaysataan weeye hadii ay idin diraan oo idin celiyaan ama shaqada idin ka eriyaan de intaanadu halkan imaanin kii rizqa idin siin jiray ee idin masruufi jiray ee ilaahay ahaa wali uu jooga kii hargeysa iyo barbara iyo burco idinkoo jooga idinku rizqa halka idinku keeni jiray de waa asagii on subhanahu wa ta'ala marka ilaahay diintiisa cidna ha joojinina ilaahayna wada sharfaya wallahu a'la wa a'lam saashi ugu dambeysay insha Allah ugu soo gunaanadan كان كلا يو قاعد يقول والي تعويض مربي تعويض بركة حتى هيستفرد الفني بالصناع يعني مسلم أو فلسطيني أو فلسطين ملكة ويا ريت يا أخي إيش هذا الصلاة بعدين السر أول والساعة بعدين تصلي وكان دخل ست بعد ست ولا يدعو لي ما يرضى الضحك يسا يجي كجرا كوشا سمتاج كان مسلم باي ما مسلم كلام مكة سؤال شو بحث عاد مسلم فابكات هذه وقت يقطعوا بعدين الله يكرم sidii aan u sheegay su'aashu waxa weeye shaqadii ku xidhanta wali salaad taagan oo maghrib oo kala ah dib ma u dhigi karaa سيدنا يدين شيء أن مركب العرب كله في قول ابن حزم كثير من العلماء وحي من سيهن هذه الصلاة وقت جيد وضافت إن أنا لقلين كريم كثير من أهل الحديث وحي آمني إن أنا صلاة وقلاب لهين وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري لبضب وحي كسو أروري إنه النبي يقول صلى الله عليه وسلم صلاة لو قروا ما لقلين كرا هدية كسر هدية اللودي مرصد حدي ما تشرتبولي حديث لبضب صنبو الشيء marka hadii aad gaaladan ay ku leeyihiin ay ku dacweynayaan horta ilaahay subhanahu wa ta'ala daina marmar ilaahay horta faraj ku siinaya hadda ilaahay u taad u wadid ilaahay faraj la shak in ilaahay yafrij anka inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu ilaahay ku difaacaya ka warwari maraykanka iyo Canada waxa horta ay idinku bushaareynaya waa maqashaan waxa maqasheen inama Soomaaliyeed oo noqday de qowm Luud hablo caynkaas ay dad xumaaday laakiin waxaan idinku bushaareynaya waliba xagga North America
inay dadka Soomaaliyeed ay yihiin dadkii diinta gudbiyey oo gaarsiiyey ayagoo hindidu intaasoo boqol sano naga soo horeysay qaar baa 100 iyo charter joogay qaar baa 80 sanadood joogay qaar baa generationkii afraad ee ku dhasheen haddana Soomaaliya madow sidoo diinta u fiyay cid umay fidinin Soomaaliya xitaa siyaar markay diyaaradda ay soo dagayso siyaar Washington markay diyaaradda soo dagayso announcement-ka waxa lagu ilaahdaa dadka diyaaradda fooshan qofka doonaya inuu taxi raaco khamriha qaadan waayo Soomaali ba tagaasida wado Soomaali wax qoonay wariga deg khamri Soomaali wada najis iyo ka ku deg booranaya halkii uu ku dajinaya asaga khamrigiisiiba gaaladii maxay sameeyeen way soo ashkatoodeen taxigan anaku dalbanay ee wadankaygii jooga aanu lacag ka bixinayno ee khamri aan anigu soo iibsaday leegu dajinaya waa maxay Soomaali waxay anaku khamri ma qaadno haddaanu muslimiin marka ninka diyaaradda air house gabadha diyaaradda announcement sheegay waxa kula dad khamri qaadanaysid a taxi qaadanaysid iska ilaali Soomaali ba ka horeysay iska ilaali Soomaali garan yani waa cajiib imika in Tony Blair samad maqal in gabadhii maxay in dumashidi ina Soomaaliyeed buu Sheekh Cabdulqaadir noo sheegay ina Soomaaliyeed ba dacwada siiyay ku muslimiinta aawadi in dhalinyaro dacwada waxa wada marka qurbaha aanu joogno Soomaali baa wada waxay ku wadaana waa mawaaqif ka soo miiran ay ku wadaan oo ay sidii raganimo isu taageen ay yiraahdeen war annagu adduun ma siisana diintayada waanu ku dhaqmaynaa waanu shaqaysanaa annagu shaqaysanaa oo ku ixtiraamana laakiin annaka tayada ixtiraam hindidii qaqaawanay halka xijaabka dumarku hindidu markan u tagnay gabadhu xijaabku markay masaajidka soo gasho intaasay saaranaysa laba goor bay xijaabka soo yar dhaweynaysa ma xiranayso qoorta ma qarinayso way soo yar dhaweynaysa waa marka quraanka la akhriyayo iyo marka imaamka aragto wadaad marka aragto ay soo yar dhaweynaysa aqalkii Ilaahayna ku dhex jirta haddii quraanka la akhriyana way soo yar dajinaysa hindidii sida ahayd baanu tagnay Soomaalidii waa tagtay Soomaali qaxoontiya oo aan Ingiriisi garanin oo shalay shaqo lagu siiyay ayaa gaalkii ku leeyahay no jumca no goodbye oo ka dhaqaajinaya dan kamale Soomaali security-ga raga security-ga haya ayagoo security oo loo diray meel xitaa qaar ka maartay in elevator-ka ascensor-ka ayaa leeyahay ka degin waayo meeshu waa construction adaa meesha ascensor-kii ku tukaday Allahu akbar ستردنا وردكتي كي صقر واحد ذا no stop يعني مواقف كأي صومالي دو أي استاكتي يعني جلد كأي موشي أي الدون كبيس بدل في الغرب تا أود بيمك واحد الله أركان جاريد القرى لقبقه وجاريد الصومالي في الغربة جاريد القرى لقبقه باكستان تني هندي تني عرب تني ولي عرفت اسكدا عرفت قبلهم ما تسامر كفى الله من القتال لكن تقول الا قبقه ضدك الا قبقه وصومالي صومالي يرق حونتيا وانت هالك وفندع على مودي وعلى عدي سوق بتي صوماليا وان شرحي تالهين ونين مدوبه اي ادوك صور تاغيه وصلاه ما جرت اسكولك جامعه وكدخ اديميا ما جرت galaaska ayagoo 500 arday ay sida u joogan oo stage-kiisa loo taagan yahay ay arkaysaa Soomaaliya oo barta ka soo daadagaya sujaagada halka dhiganaya professorkii halkan taagan dariska sharaxaya halka koonaha ayuu fidanaya Allahu akbar dan kamale wa izzat an-nafs wa izz wa sharaf marka mawaaqifka aynu taaganahay hadii ku adkaysanana haysan Ilaahay wuu ina sharfaya marka anigu waxay idin leeyahay walaalayaal إلهي هينو هول يرايو قربه ودن كان إلهي نو هاجاتشي هينو ندتشيو خير كان هكذا إنه كوها يصير متكون كان هاي نسيو يوحنا لنا الله في الدين والدين تإنه إلهية أو إنه هي وندعي سنة آمين لها اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وارحمنا ولا تعذبنا وزدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تضعنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم احشرنا مع زمرة نبيك محمد صلى الله عليه